Bismillaah. Fayraska Corona ma ahan mid muslimiinta ugula khatarsan fayruusaadka kale sida fayraska shirkiga, cilmaaniyadda, dimuqraadiyadda, dulmiga, fasaadka, shaacinta munkaraadka iyo la jahridda macaasida. Corona kama khatarsano oo kama xumo munaafiqnimada, u sacbiska baadilka, iyo in lala dagaalamo ducaadda dhabta ah. Sababtoo ah dhammaan fayruusaadkan aan soo sheegnay marka laga reebo Corona waa dilayaal adduun iyo aakhiroba. Fayruska Corona intee ayuu la egyahay xajmigiisa? Laga yaabaa boqolkii qof inay 2 qof u dhintaan. Laakiin ka waran fayraska warfaafinta? Ka waran fayraska baraha bulshada? Meeqa qof ayuu maanta dilay akhlaaqdooda? Meeqa qoys ayuu burburiyey? Ma lahan tiro iyo xisaab. Ka waran fayraska waxbarashada khiyaaliga ah oo baadilka ku dhisan, taasoo qofka looga tirtirayo diintiisa Islaamka ah. Imise jiil ayay soo saartay oo caasi ah iyo mas'uuliyiin wax fasaadiye ah. Lama soo koobi karo xaqiiqdii. Fayraska jaahilnimada meeqaa la helay ayagoo la adoonsaday oo dulaysan, laakiin intaasoo dhan cid maanta u qaylisay ma lahan daawadooda. Bal fayruusaadkaas waxaa lagu dadaalay in la gaarsiiyo xitaa waddamada moog intaas. Waxaa lagu dadaalay in aadamuhu dhan ay qaadaan fayraskaas. Cajiib. Corona wareegtada dhammaadkeeda waxa uu noqon doonaa keliya fayras, xaalkana sidiisa ayuu ku laaban doonaa insha Allah. Laakiin waxa dhacay waxa uu noqon doonaa cashar midkii ugu weynaa ee aadamuhu la kulmaan. Caalamka maanta si walba uu horumar u sheegtay, si walba uu awood u sheegtay, Alle subxaanahu wa tacaala awooddiisa ayuu tusiyey. Allah waxa uu tusiyey inuu maanta caalamka ku halaagi karo wax yar oo ilmo qabato ah. Haddaba dadow, garta xajmigiina mar walbana xasuusnaada awoodda Alle subxaanahu wa tacaala.